waxaan jeclahay maanta su'aal in aan ku weydiiyo weligaa nafsadaada ma la xisaabtantay inta meel fadhiisatay su'aalo aad kula xisaabtamaysay nafsadaada ma weydiisay buug iyo qalin inta soo qaad ma isweydiisay wixii aad qaladay wixii aad saxday maanta meesha aad joogto iyo meesha aad u socoto nafsadaada accountability ma ku samaysay xisaabtan ma ku samaysay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waxaa laga wariyaa in uu sheegay in uu yiri حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا نفس الدين حسابية انت آن ليدن حساب كهر نبي صلى الله عليه وسلم حديث قيامها ضدكم مركب بنك قيامة التقان وحقوليه من نوقش في الحساب عذب قفك حساب طلوع أتكيو وسؤال بضن لويديو قفكاسي runtii waa la cadaabay marka maanta waxaan jeclahay in aan idin la wadaago saddex tiir oo kuu fududeynayo in aad mataqaanaa nafsadaada aad la xisaabtanto tiirka koowaad waxa weeyaan awareness ogaansho horto in aad tahay qof xaqiiqdiisa og meesha hadda uu joogo qof yaqaano in aad tahay oo ogaanshahaas aad leedahay runtii waa muhiim waaye wax badan ayayna nafsadaada ka bedelaysaa wixii aad soo dhaaftay oo aad shalay aad samaynaysay meesha maanta aad joogtid iyo bari meesha aad u socoto waxa wax ka bedeli kara yani waxa weeye awareness-ka ogaanshaha aad nafsadaada u yeeshay ayaa wax ka bedeli kara tiirka labaad waxa weeyaan acceptance in aad aqbashid wixii natiijo ahaa oo markaas kuu soo baxay nafsadaada markii aad la xisaabtantay kadib inaad aqbashid ayaa lagaaga baahan yahay cudurdaar ha u samey nafsadaada waxyaalo aan jirin ha samaysan qofna ha eedeenin in aad adiga samaysay in adiga ciladaas ay kaa imaatay in dembigaas adigu aad gashay يعني إن قفك كليه أو مركز صحي كره أديجا وياهي أيا لو بهيه إن أد أقبشي acceptance مركا وحوين أيو حكتر يسا إن أد نفسد هذا الحساب تنتد وأد هوري وسوتي تيرك سد حد وحوي action فعل مركا وحلو بهيه إن أد فعل جيسي نمله التي مادد فعل أد وحكو بدلي كرتد التي مادد qaladaadka hore kaaga dhacay waxyaalihii aad ka gaabisay wax walbo mataqaanaa hore aan nafsadaada u samaysay shalay wixii dhacay sanadkii la soo dhaafay wixii dhacay kulli waxaad ku bedeli kartaa hadal ma aha in aad meel fadhididna ma ahan waxaad ku bedeli kartaa waxa weeyaan action in aad ficil la timaadid ayaa ku bedeli kartaa maanta marka waxaa waaye muuqaalkan gaaban waan jeclahay in aan idin la wadaago talaabooyinka ama tiirarka aad qaadi kartid si markaas waxa weeye nafsadaada aad ula xisaabtantid ayaan jeclahay in aan idin la wadaago muuqaalkan dadka kale la wadaaga dadka kale gaarsiiya mar kale aan sarkeena khayr badan baa idin rajeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh